kulanta haboon daawadayaal halka naga daawaneysaan waa channelkeena Hormaal Media alaaba halkan waxaan idinkugu soo gudbinaa xogii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwooda ugu waaweyn intaad muuqaalka daawanayso waxaan ku soo gudbin doonaa Xuutiyiinta Yemen oo mar kale weerar gantaal ah la bartilmaameedsaday gudaha magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil waxa sidoo kale muuqaalkeedii soo gudbin doonaa banaanbax oo maalintii saddexaad ka soconaya guud ahaan Mareykanka kaasi oo looga soo horjeeda madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump sidoo kale Israa'iil oo qiratay in jab culus uu ka soo gaaray intii uu socday dagaalka bariga dhexe xogaa soo dhameystiran wixii nagu soo kordho intaad muuqaalka daawanayso ayaan ku soo gudbin doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhegan baleelkana fursi ku soo gaara muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahay muuqaalkeena share garay laakiin inoo sar soo gaar asxaab badan waad ku maasanta daawashadaada aynu ku bilaabno Xuutiyiinta Yemen ayaa markaan si toos ah ugu biiray dagaalka ka soconaya bariga dhexe iyadoo durba ay bilowday in weerar gantaalo ah ay ku tuurto magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil iyadoo weerarkii ugu dambeeyay ay Israa'iil Xuutiyiinta Yemen ay saaki subaxnimadii hore ay ku weerareen gudaha magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa waxa ay muujinayeen heerka baaxadda khasaaraha soo gaaray Israa'iil iyadoo gantaalo la sheegay ilaa 10 gantaal ay Xuutiyiinta Yemen ay ku tuureen Israa'iil iyadoona la sheegay inay ku dhaceen bartilmaameedyo muhiim u ahaa iyadoona qaarkood ay ku dhaceen goobo shidaal oo muhiim u ahaa Israa'iil waxaana la sheegay in Xuutiyiinta Yemen markaan isku soo diyaariyeen inay ka barbar dagaalamaan Iiraan oo yihiin xulufo isu dhow waxaana horey ay u soo jeediyeen intii aysan dagaalka aysan ku biirin inay ka waantoowaan Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka weerarada ay ka fulinayaan gudaha dalka Iiraan iyadoo hanjabaado culus ay dhowr jeer ay hawada ay u marisay Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil ayaa waxay noqdeen mid aanan biyo ka dhibcin balse Xuutiyiinta Yemen ay markaan si toos ah ugu biireen dagaalka ka soconaya bariga dhexe iyadoona sidoo kale ku sii hanjabayaan in weeraradooda ay noqon doonaan kuwa joogto ah ilaa iyo Israa'iil iyo Mareykanka ay ka joojinayaan duqeymaha ay ku wadaan magaalooyinka Iiraan waxaana la sheegay in gantaaladii Xuutiyiinta Yemen ay ku tuureen gudaha Israa'iil ay ka dhasheen khasaare aad u fara badan oo sababay dhimasho dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed inkastoo Israa'iil iyo Mareykanka ba wali faahfaahin aysan ka bixinin duqeymaha isdaba jooga ee Xuutiyiinta Yemen ay la bartilmaameedsanayaan magaalooyinka waaweyn ee Iiraan iyadoo sidoo kale warar hoose soo baxaya ay sheegayaan in halkaasi ay ku baqtiyeen saraakiil sarsare oo ka tirsanaa kuwa Israa'iil inkastoo xogahaasi wali si shaacsan aan loo soo shaacinina balse xogo sirdoon ayaa tilmaamaya in jab xoogan oo Israa'iil uu ka soo gaaray xilligan ay ka taagan tahay in mar qura la soo afjaro dagaalka ka soconaya bariga dhexe walow ay baaqyo kala duwan ay u direen Iiraan ay gabi ahaanba ka soo horjeedo in dagaalka bariga dhexe uu soo gabagaboobo kaasi oo muddo bil ka socda guud ahaan bariga dhexe sidoo kale wadamo ka mid ah Khaliijka Carabta dhinaca kalena Israa'iil ayaa xaqiijisay in askar Israa'iil sarsare uu kaga geeriyoodeen intii uu socday dagaalka ka socda bariga dhexe inkastoo aysan shaacinin tirada rasmiga ah balse ciidanka difaaca Israa'iil ayaa xaqiijiyay in askar ku dhimatay koonfurta Lubnaan halkaasi oo ay ka bilaabeen duulaan ka dhan ah midka dhulka oo muddo ku dhow 2 toddobaad ka hor 3 askari oo kale oo ka tirsan ciidanka militariga Israa'iil ayaa ku dhaawacmay sida lagu sheegay warbixin ay daawaceen taasi oo ay ku dhinteen saraakiil sarsare waxaana la sheegay in isbitaalka sidoo kale la dhigay qaar ka mid ah saraakiil u dhalatay Israa'iil inkastoo Israa'iil aysan shaac bixinin tirada rasmiga balse waxay ku dhawaaqday inay jiraan waxyeelo ka soo gaartay saraakiil sarsare oo ay kaga geeriyooday dagaalkaasi in ka badan 100 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan 120 caruur iyo sidoo kale 24 shaqaale caafimaad ayaa ku dhintay Lubnaan intii uu dagaalka socday ilaa hadda sida ay sheegeen wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan haddii aan aadno gudaha Mareykankana waxaa xilligan ka soconaya dibadbaxyo waaweyn kaasi oo galay maalintiisa saddexaad in ka badan 7 milyan oo qof oo shacab ah ayaa isugu soo baxay barnaamijka waaweyn ee gudaha dalka ee Mareykanka ilaa iyo 50 gobol ayaa waxaa la soo warinayaa in banaanbaxaasi si wada jir ah maalintii saddexaad ugu soconaya
ciidanka booliiska ayaa waxay isku dayayaan in banaanbaxaasi ay joojiyaan waxaana la soo warinayaa in dadka shacabka ay u adeegsanayaan sunta dadka ka ilmeysiisa iyadoona sidoo kale shacabka ay mar walba ay ku dhawaaqayaan no king oo ay kala jeedaan no boqor kaasi oo ay kala damacsan yihiin madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxay dadka dhigaya dibadbax ay sheegeen in inta wax ka bedel uu kaga imaanayo gudaha dalka Mareykanka aysan joojin doonin dibadbaxoodii oo ay si joogto ah u sii wada doonaan waxa sidoo kale ay sheegeen in dibadbaxa uu noqon doono mid sii soconaya ilaa inta xaaladda ee Mareykanka iyo sidoo kale guud ahaan bariga dhexe ay iska bedelayso waxaana sidoo kale ay ku hanjabayaan in waxyeelada ka dhalata dibadbaxaasi oo mas'uuliyadeeda uu qaadan doono madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump dhinaca kalena ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran ayaa ku hanjabay inay bartilmaameysan doonaan jaamacadaha Israa'iil sidoo kale kuwa Mareykanka ee ku yaala bariga dhexe hanjabaada Iran ayaa imaaneysa kadib markii lagu qaaday jaamacadda sayniska iyo sidoo kale tiknoolajiyadda ee magaalada Tehran taasi oo Iran ay ku eedeysay Israa'iil bayaan ay soo saareen Iran ayaa waxaa lagu sheegay in jaamacadaha Israa'iil sidoo kale Mareykanka iyo guud ahaan gobolka loo aqoonsan doono bartilmaameedyo sharci ah ilaa laga argudanayo weerarkii lagu qaaday jaamacadaha Iran waxay tilmaameen in arintan ay tahay jawaab militari oo la xiriirta weeraro ay sheegtay in lagu bartilmaameedsaday xarumo cilmi baaris oo muhiim u ah Iran waxaan kula talinaynaa dhammaan shaqaalaha macallimiinta iyo ardayda jaamacadaha Mareykanka ee ku yaala gobolka iyo sidoo kale dadka degan argooyinka in ay u jiraan masaafo dhan 1 kiiloomitir jaamacadahaasi si loo xaqiijiyo badqabka ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay Iran bayaanka iyo sidoo kale waxaa lagu sheegay in Mareykanka uu haysto fursad uu ku cambaareynayo duqeymaha lagu qaaday jaamacadaha Iran sida looga baaqsado weerar argudasho ah oo lagu qaado hay'adaha Mareykanka ee ku yaala bariga dhexe waxaa sidoo kale loogu baaqay Mareykanka inuu qabsado waqti kama dambeys ah oo ku eega 12 fiidnimo ee maalinta Talaadada oo ay ku beegan tahay 3 Maarso hanjabaada noocan oo kale ayaa khatar gelin karta xarumaha waxbarashada iyo sidoo kale muwaadiniinta rayidka isla markaana sii kordhin karta halista dagaal ee ballaaran oo ka qaraxda bariga dhexe sida ay ugu digeen saraakiisha Mareykanka sidoo kale warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegtay in hay'adaha ammaanka Israa'iil ay sare u qaadeen feeljignaanta la xiriirta amniga jaamacadaha iyo sidoo kale xarumaha cilmi baarista iyadoona ka cabsi qaba weerar suurtagal ah oo iman kara kooxaha ay Iran taageerto ee ku sugan gobolka xiisada u dhaxaysa Israa'iil Mareykanka ayaa si xumaanaysa waxayna gaartay heer la bartilmaameedsado goobihii waxbarashada iyadoona labada dhinac midba kale uu ku hanjabayo inuu beegsan doono xarumaha waxbarashada iyadoo horey Israa'iil lagu eedeeyay in ay duulaan qaaban oo goobaha waxbarashada ay ku qaaday ay ku yaala magaalooyinka waaweyn ee Iran wixii xogay ku soo kordho dhacdooyinkan idin soo gudbinay muuqaaladeena xiga iyo idin kugu soo gudbin doona haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhigam leelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga haddii subscribe inoo taayna muuqaalka noo share garay like inoo saar si oo gaar asxaab badan oo ku maasanta daawashadaada